dunida jooga oo dhami waxa ay ka siman yihiin rajooyinka fikirka, laakiin waxa aan shaki ku jirin in aanay jirin laba qof oo si isku mid ah wax kasta ugu fikira, laakiin waxa suurtagal ah inay jiraan dad afkaarta qaar ka midaysan. haddaba qaabka uu u fikiro qofku waxa ay sameeyaan noloshiisa dhabta ah adduun iyo aakhiraba. waa haddii hanaanka uu u fikiraya yahay mid wanaagsan oo iftiimaya, isla markaana ku dhisan rajo iyo hididiilo horumareed, noloshiisu waxay noqonaysaa mid qurux badan, lagana dheehan karo farxad iyo raynrayn. sidaas darteed ayaa Allah sareeyay waxa uu dhowr jeer ku celceliyay Qur'aanka dhexdiisa isaga oo siyaabo kala duwan u cabiraya fikirka. Allah sareeyay wuxuu ku leeyahay suurada Aali Cimraan aayada 191 alladheena yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله isagoo oo ka hadlaya dadka aqliga leh waxa uu yiri waa kuwa Allah xusa iyagoo taagan, iyagoo fadhiya iyo iyagoo jiifaba, waxayna ku fikirayaan cirka iyo dhulka abuurkooda. sidoo kale Allah suuratul Rum aayada 21 waxa uu ku leeyahay wa min ayatihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. aayadaha alle waxa kamid ah in uu Allah idinkaga abuuray nafsadiina xaasas si aad ugu xasishaan, waxa uuna yeelay dhexdiina kalgacayl iyo naxariis. arintaasi waxay aayad ugu sugan tahay ama cibra qaadasho ugu sugan tahay dadka fikira. sidoo kale Allah suuratul Rum aayada 8 wuxuu ku leeyahay awalam yatafakkaru fi anfusihim ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. nafsadooda soo fikiri maayaan eeba inuusan u abuurin cirka iyo dhulka iyo waxa u dhaxeeyo uun ahba xaq mooyaane. sidaas darteed ayaa Umar ibn Abdul Aziz waxa uu leeyahay fikirku waxa uu ku jira nimcooyinka Allah, waxa uuna kamid yahay cibaadada kuwooda waaweyn. sida mid ah Aamir ibn Qays Allah karaan laqday waxa uu yiri waxaan ka maqlay 2 ama 3 asxaabta rasuulka kamid ah iyagoo dhahaya iftiinka iimaanka ama nuurka iimaanku waa fikirka. sidoo kale Imaam Xasan al-Basri ayaa wuxuu yiri hal saac in aad fikirtaa waxa ay kaaga wanaagsan tahay hal habeen oo dhan oo aad cibaado u taagnaato. sidoo kale Fudail ibn Iyaad ayaa wuxuu yiri fikirku waa sida muraayad oo kale, waxa uu ku tusiyaa wanaagaaga iyo xumaantaada. sidaas darteed ayaa qofka muslimka ah waxa looga baahan yahay inuu noqdo qof aad u fikira si horumar wanaagsan u gaaro adduun iyo aakhiraba. sida awgeed ayaa Allah wuxuu ku leeyahay suuratul Taariq aayada 5 ilaa aayada 7 فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. حفيري إنسانك waxa laga abuuray biyo boodboodaya kana soo baxay dhabarka iyo kalxamaha inta u dhaxaysa. sidoo kale dhowr oo fiiri dhuux ama dheecaan yar oo gacantaada labadeeda lafood u dhaxeeya ayaa waxaad ku qaadaysaa culays intaasoo kilogram. bal eeg oo fiiri hilib iyo dheecaan yar ayaad wax ku arkaysaa oo walibana aad ku raaxaysanaysaa. sida awgeed fikir oo dadaal si aad horumar u gaadho, fikir oo dadaal si aad wax u barato, fikir oo dadaal si aad amal suuban u samaysato, fikir oo dadaal si ay dadku ku jeclaadaan, fikir oo dadaal si uu Allah u jeclaado, fikir oo dadaal oo amal wanaagsan samee si uu Allah jannada ku galiyo. ugu dambayn waa walaakin mustafdaaci oo idin leh kulan dambe oo xiiso leh. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.